waxaan cadaynayaa inaan isu taagnay waxaan cadaynayaa inaan isu taagnay waxaan ka codsanaynaa inoo ilaaliyo xasiloonida waxaan cadaynayaa dama la yiraahdo haramcad waxyaabaha yaab kale waxa weeye haddii haramcad loogu talagalay inuu ariga reeraha uu dawacada cunaysa ka cunana oo shabaab loogu talagalay tale ahaan lahayd laakiin haramcad xoolihii iyo dadkii cunaaya runtii waa arrin aan fiicnayn suurad xun ka dhalinaysa soomaalida dhexdeeda u abuuraysa nidaam dadka Soomaaliyeed ay ka soo doogayeen oo ah in qod caaradiisa la isku maamulo arrimaha noocaas runtii waxay walaac gelinaysaa Puntland sida hadda wax ku socdaan haday ku sii socdaan waxaan idin sheegayaa maalintii loo markii la isu tagay xukuumaddu waxay ka muujisay dulqaad la'aan khalad inuu ka yimaado media ama TV ha noqoto ama radio ha noqoto ama maxay social media ha noqoto waliba si gaar ah madaxweynuhu zero tolerance inuusan xambilin waxba madaxweynuhu u qaatay in la soo dhaxgalay meediyihiisa iyo dadkii isaga la shaqeynayay saasayna arrintu ugu yeekaatay magta markii bashara dagaal baa ka soo dhaxun magta xasiloonida hadalka madaxii baad weydiisay waad aamusaysaa nidaamka dawladnimada haddaan raacin mas'uuliyaddeeda aad qaadi doona dawladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu aadimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayay mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dawga dawladdan ay dooratay in aan ku dhaqdo